sida looyareyo stresska. waxaa laga yaabaa inaad dareento stress ama walwal marka hawlo badan oo aad rabto inaad qabato cadaadis kugu hayaan hawlahaasi oo aad rabto inaad ku dhamayso waqti cayiman mid ka mid ah sababaha ugu badan ee ay dadku ugu guul dareystaan inay iska xakameeyaan dareenada aanin rabin sida stresska waa iyagoon fahansanayn dareenada stressku waa dareen aad dareento marka maskaxdaadu rabto inay kuu soo dirto fariin markaad stresska ama walwalka dareento maskaxdaada waxaa qabsada oo ay mashquul ku noqotaa isla markaana culays saare waxyaabo kale taasi oo ku adkaysa inay aqbasho qabashada hawlaha kale sida loo maareeyo la iskagana yareeyo stresska qodobada aan halkan kuugu sheegi doonaa waxay si weyn kaaga caawin doonaan inaad si aad ah hoos ugu dhigto stresska markasta oo aad dareento hel hab aad ku xalliso dhibaatooyinkaaga waqtiga dheer dadka qaar ayaa u maleeya in habka keliya ee aad dhibaato kula tacaali kartaa tahay adigoo xalliya balse taasi 100% run ma aha mararka qaar waxaad u baahan tahay oo keliya inaad maskaxdaada dejiso isla markaana aad tusto qorshe aad wax kaga qabanayso dhibaatada tusaale ahaan haddii aad ka warwarsan tahay inaad natiijo hoose keeni doonto imtixaan dareenkaagu aad ayuu u fiicnaan doonaa isla marka aad samayso jadwal ama timetable aad wax ku akhrido inkastoonad weli bilaabinba inaad wax akhrido haddana maskaxdaadu waxay dareemi doontaa dareen aad u fiican dad badani xal uma sameeyaan dhibaatooyinka ay ogyihiin inay waqti dheer kadib la kulmi doonaan balse way ka warwaraan oo keliya taasina waxay sababtaa in maskaxdoodu mashquul sii ahaato si fududna uu stress ugu dhaco jooji qabashada waxyaabaha kaloo dhan marka dhibaato cusub ay kugu dhacdo haddii aad war xun maqasho ama haddii wax xun oo aanad filanaynin kugu dhacaan waa inaad joojisaa wax kastoo kale oo aad qabanaysay isla markaana aad ka fikirtaa oo keliya waxa cusub ee kugu soo kordhay ilaa aad ka ogaanayso sida aad ula tacaalayso intaa kadibna sii wado oo ku noqo hawlahaagii aad wadatay ugu horbilow hawlaha aad inta ugu badan ka warwarsan tahay haddii ay ku sugayaan hawlo badan oo aad rabto inaad qabataa waa inaad ugu horrayn ku bilowdaa kuwa aad inta ugu badan ka warwarsan tahay si marka aad dhammaystirto aanad wax kale uga warwarin jimicsi samee hab kale oo aad u awood badan oo aad ku dhimi karta stresska iyo warwarka badani waa inaad jimicsato stressku wuxuu buuxiyaa oo uu qayb weyn ka qaataa maskaxdaada haddii aad bilowdo inaad jimicsato waxaad isticmaali doontaa muruqyadaada waxaanad culayska ka qaadi doontaa maskaxdaada kadib markaad dhammaysato jimicsiga waxaad ogaan doontaa in stresska uu si weyn kaaga yaraaday dadka sida joogtada ah u jimicsadaa culayska uu stressku ku hayaa aad ayuu u yaryahay marka loo barbar dhigo kuwa aan jimicsan hoos u dhig cabista ama qiijinta sigaarka si ka soo horjeeda sida dad badani aaminsan yihiin cabista sigaarku waxay sii kordhisaa heerka stresska neefta aad qaadato markaad sigaarka nuugayso ayaa kaa dhigtay inaad nafis dareento balse sigaarka laftarkiisa maaha mar keliya hawlo badan ha wada qaban waxaa la ogaaday in hawlo badan oo mar la wada qabtaa ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee sababa stresska dhammee hawsha aad gacanta ku hayso ugu horrayn ka hor intaanad u gudbin inaad hawl kale qabato subaxdii hore u toos markaad subaxdii hore u kacdo waxaad heli doontaa wakhti badan oo aad ku qaban karto hawlaha muhiimka ku ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee sababa stressku waa adigoon wakhti kugu filan u helin hawlaha muhiimka ku ah si fiican u seexo markaanad si fiican u seexan waxaad dareemi doontaa xanaaq iyo cadho badan cadhadan iyo diiqadan badanna waxaa aad u suurtagal ah inay kugu sababaan stress buugga sida saacad gudaheed loogu ogaado qofka ku jecel ma ku dawaqsan tahay ogaanshaha inuu qofku jecel yahay iyo in kale ma doonaysaa inaad ogaato in qofka aad jeceshahay uu si dhab ah ku jecel yahay iyo in kale sidoo kale ma rabtaa inaad ogaato qofka aad soo jiidato iyo ka aanad soo jiidan mase rabtaa inaad ogaato qofka kuu arkay inaad tahay qof soo jiidasho leh shaki la'aan buugga sida saacad gudaheed loogu ogaado qofka ku jecel waa buugga ugu fiican ee ku bari doona sida saacad wax ka yar loogu ogaado qofka ku jecel iyo ka aan ku jeclayn haddii aanad ku ogaanba 5 daqiiqo gudahood si aad u ogaato sida aad ku helayso buuggan iyo sida aad noola soo xidhiidhaysaba booqo website-kaygan waxkabaro.blogspot.com oo aanu sidoo kale kuugu qori doono description-ka hoose ee fiidiyowga sidoo kale daawo fiidiyowgan oo ku siin doona macluumaad badan oo ku saabsan buuggan